galo waa diidayna sidaan ku nimid xildhibaankii ku yimidna isku mid aan nahay waxbaan la dooranay ku soo dhawaada janalka Warkeen TV xildhibaanadii Eelwaaq oo qaarkood horay u galay hoolka oo laga soo saaray doorashada guddoonka oo laga reebay xildhibaanada Eelwaaq iyo Garbahaaray oo la sheegay in labaduba aysan ahayn kuwa sharci ah haddaba intaynu guda gelin warbixintan fadlan janalka Warkeen TV subscribe saar oo muuqaalkan like saar sidoo kalena sii share garee muuqaalka aan guda galno warbixinta oo dhammaystiran qaar ka mid ah xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada Eelwaaq ee gobolka Gedo ayaa la sheegay in laga saaray hoolka teendhada Afisyooni oo ilaa dhowr xildhibaan siyaabo qiyaanimo ah ay ku galeen gudaha teendhada Maxamed Soomaali wasiirka xanaanada xoolaha kana mid ahaa xildhibaanadii Eelwaaq laga soo doortay ayaa ka mid ah xildhibaanada gudaha u galay hoolka Afisyooni xildhibaanada Eelwaaq iyo Garbahaaray ayaa ahaa dooda u weyn ee hadhaysay qabsoomida doorashada guddoonka ayada oo xubno ka mid ah guddiga qabanqaabada doorashadaas ay diideen in xildhibaanada labadaas magaalo laga soo doortay ka qayb galaan doorashada ka saarida xildhibaanada Eelwaaq ayaa timid sida wararku sheegayaan markii shir ay yeesheen guddoonka kumeel gaarka ah xildhibaano iyo guddiga doorashada la isku raacay in Sodon iyo labada xubin ee Eelwaaq iyo Garbahaaray aysan ka soo qayb gelin doorashada guddoonka dibna loo dhigo arrintooda doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa ka daahday in la bilaabo waqtigii lagu ballamay kadib markii xildhibaanada qaar aysan gaarin hoolka doorashada balse xaalka hadda sidii hore waa ka roon yahay waxaana lagu wadaa inay qabsoonto doorashada saacadaha soo socda waa muuqaal yar oo aad u kooban oo aan doonayo inaan idinku update gareeyo waa maxay wixii ugu dambeeyay ee ka socda gudaha hoolka Afisyooni oo loo madlan yahay in lagu doorto guddoomiyaasha baarlamaanka marka waxaan rabaa meelaha ugu dambeeyay waxyaalihii meesha ka taagnaa waxa ka socda bal inaan idin sheego waxaan idin sheegayaa marka hore muran badan kadib isjiid iyo qaylo fara badan kadib waxaa heshiis laga gaaray in 36 xildhibaan ee laga soo doortay Ceel Qaalow iyo magaalada Garbahaaray gabi ahaanba banaanka looga saaray hoolka oo aysan ka qayb galin doorashada arrintaas waxay ahayd waxa ugu badan oo maanta keenay in doorashadu ay sidaan ay u daahdo ugu dambeyntiina banaanka loo saaro waxa heshiiskan la sheegay in intiisa badan uu ahaa mid ka dhex yimid gudaha baarlamaanka kadib markii ay wada hadleen baarlamaanka isugu yimid hoolkii Afisyooni ayagii wada hadal ka yimid ka bacdi ayaa heshiiskan laga gaaray sida ay sheegayaan dad ka mid ah dadka ku jira gudaha baarlamaanka waxa ku soo dhuuntay marka laba ka mid ah xildhibaanadii lagu soo doortay Ceel Qaalow oo uu muranku ka taagnaa ayagiina ugu dambeyntii waa laga saaray sida la xaqiijiyay waxay labadan xildhibaan ay keeni gaareen in uu hoolku ka dhaco gacan ka hadal iyo muran maadaama xildhibaanadii diidanaa ay meel adag ka gaartay kuwa kaleetana sidoo kaleetana ay isku dayeen inay difaacaan ciidankii booliska ahaa oo buuqa dareemay ayaa banaanka u saaray laba xildhibaan oo ku soo dhaxdhuumatay sida ay ku sheegayaan magacyada labada nin ee ku soo dhaxdhuumatay ee kamid ah kuwa Ceel Qaalow ka yimaaday ayaa waxa magacyada lagu sheegay inuu yahay inay yihiin xildhibaan Daqare iyo xildhibaan kale oo asagoo magaciisa la yiraahdo Maxamed Soomaali labaduna waxa looga saaray dibadda 32 xildhibaan banaanka hadda taagan yihiin waxa hadda gudaha ku sugan xildhibaanadii baarlamaanka intooda badnayd kuwii markaasi horay shahaadooyinka u qaatay oo la aqoonsanaa ayaa intooda badan hadda gudaha ku sugan marba ka dambaysa waxa sii kordhaya tirada xildhibaanadan waxaana hadda si xawli ah u imaanaya xildhibaanadii ka imaanayay koonfur galbeed iyo waliba kuwii ka imaanayay hay'adda nabad sugidda qaranka oo markaasi uu hormuud u yahay Cabdullaahi Kulane iyo nimanka waxa kale oo hoolka ay haddana sidoo kale yimaaday musharaxiintii u tartamaysay guddoomiyaasha baarlamaanka waxayna markiiba ayaguna waxa la sheegay inay guda galeen inay markaasi xidxutaan xildhibaanada oo ay markaasi hore ka bilaabaan campaign-kii waxa hadda marka taagan baa la yiri waqtiga afurka waxay noqon doontaa in waqtiga afurka ka bacdi ay doorashadu ay dhacdo inta ka horeysana wixii la sugi karo oo xildhibaanada markaasi la suusigo cidii campaign garanaysa markaasi ay si campaign garayso waxay xaaladdu hadda u muuqataa marka mid hadda soo deganaysa ugu dambeyntiina waxa hadda muuqataa inay macquul gal tahay inay doorashadu ay dhacdo oo waliba ay si nabdoon ku dhacdo caqabadii ugu weyneed oo taalimeesha ayaa waxay ahayd oo kaliya waa in ay soo galaan 32daasi oo horay loo diiday oo dawladdu ay u diiday
oo askartu ay u diiday oo markaasi si weyn loogu kala fikir doonaa haddii markaa 32 ay banaan ka taagan tahay way fududahay in markaasi ay doorasho ay dhacdo waxaa kale oo runtii taagan weli oo muuqada raadadka sida loo kala fikir duwan yahay ama sida ay labadan kooxood ay runtii si weyn u kala fikir duwan yihiin qaabkay wax u socdaan waxaa jira xildhibaano xataa dhaliilaya qaabka uu gudoomiyaha uu u maamulayo arrimaha doorashooyinka waxaa jira xildhibaano kale oo ayaguna si weyn uga caraysan sida guddiga doorashooyinka iyo waliba gudoomiyihiisa oo markaasi uu wax u wado mar walba waa suurtagal in ay yimaado khilaafaad keeni kara gacan ka hadal haddii qaabka wax u socdaan markaasi uu noqdo qaab ay ayaga qaybo ka mid ah aysan markaasi aysan ku qanacsaneen laakiin inta markii laga soo tago doorashooyin dhacaysa ayaa la filayaa kulli cidii la dooran doono oo calafkoodu noqdo waa la dooran doonaa imise qaadan kartaa in guddoonka la doorto waxaan aaminsanahay inay muddo badan ay qaadan doonto caawa ilaa ay suxuurta kulli waa la isla gaari doonaa baan u malaynayaa waxaan rajeynayaa inay fudaato intaa waa intii aan soo aruuriyay macluumaada haddaba adigu maxay kula tahay horta yaa dooranaysaa oo uu yahay guddoonka aad doonaysid inuu baarlamaanka maanta uu ku soo baxo oo aad taageeraysid bal fadlan magaciisa nala wadaag intaan isku soo laabanay dhinaca kale xildhibaanada aqlabiyadooda ayaa horay u sheegay in aysan marna aqbalayn in xildhibaanada ceelwaaq aysan marna ogolaanayn inay ka qayb galaan doorashada iyagoo u aqoonsaday in ay yihiin xildhibaano aan sharci ahayn waanaga intaa warbixintan oo aad kala socoteen janalka warkeen TV wixii warar ee arrimaha doorashada halkan ayaad ka socon doontaan fadlan janalka subscribe saar oo nagu soo biir like saar oo sii share garee intaan dib u wada kulmayno nabadgelyo وبالله التوفيق waxaan joognaa teendadii loogu talagalay doorashadii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isagaan taagannahay waxaan u nimid inaan waxna dooranno waxna diidno labadaba waa u nimid waxaan diidaynaa maxay yihiin sida aan ku nimid xildhibaankan ku imaanin oo teendhadan soo galo waa diidayna sidaan ku nimid xildhibaankii ku yimidna isku mid aan nahay waxbaan isla dooranayna sababtaan meesha u midna waa saas xildhibaannimadana waa saas wabilaahi tawfiiq maxamed sheekh inta ciirow maxamed sheekh soo qabaya caqabadii maanta la kulanteen annaga wax caqabada oo ilaahay abuuroon la kulannay ma jirto gurigii aan deganaa markaan ka soo dhaqaaqay si toosa teendhadaanaan u imid 20 daqiiqo wax ka yar gudaheeda wax barbaleema lama kulmin waqti tan baa soo baxay Soomaaliya saakay dadkii yimid culays badan la kulmeen adoo la waqtiga ma saakay dadkii yimid taas ayaga ka jawaabay laakiin aniga wax culays aan la kulmay ma jirto martan baa timid laakiin martan baan imid wax culaysana kala ma kulmin maxamed sheekh haye marka arrinka aan u imidna waa idin sheegay doorashada waxbaan diidanaa tiri maxaad diidaytaa waxaan diidahay way caddahay sida aan ku imid xildhibaannimadayda ninkii aan ku imaanin kii ila mid ah waa okay kii aan ila mid ahayn oo laab ku yimid waa diidahaya kaas way kaan diidahay horta magacayga waa xildhibaan Zeyni Maxamed Caamir wallaahi caawa dareenkayga aad u wanaagsan yahay maxaa dhacday waa habeen wanaagsan oo caawana 27kii ay tahay maxay helaytul qadarka ilaahay waxaan ka rajaynayaa mid qeyr qabo oo la kulmo maanta leeysul qadarkan la kulmin ilaahay keeno marka aniga dareenkayga aad u fiican yahay meehi xildhibaan hadda jadiid oo baraarugaya meehi waxaan ahay 20 sano waxa ilaahay ka rajaynayaa mid anfaco waa ogteen meesha hadda maraysa siyaasadda iyo heerarka la taagan yahay mid ilaahay qaboojiyo oo kala dabaro oo wax fiican shacabkooda uga fiican Allah ka keeno meeshan والله هو هرت أنا نسيبنا عقبته ما أنت لما كل من لكن دبتوي بدن يلا كل من حلي بعنا ده أنا وحنا الملا سيتو تمسح عبركوي تمسح سي بيجرا قصة قلي لكن ما أنت عاد أي عقبات حلي بعنا لكل من وحبك مش هيك هذا وحبه يعني قال لكل من هنا إرادة حبان لكل من ويبقى لكن هو أنا مد بان شيء عقبات إيمان دون تان كهذا ليا وحاربنا أنك